وأربعة تاريخ ضروا اللح إيا لباتن كبشا نوفمبر سنة كاللبكن يشان يا لباتن هذا برنامج كواكي وجوه الرئي برنامج هذا إنه ما تدي سوق بين دونه ورا المهمة وصوك الرئي إنه برنامج كوفا فاهرنا إسرائيل أو وركسو علسي أريد كوسابسن إن لورد ما يستري لفيه لوجا هيستي جزا إن كستو أي حقيقيين كوي لودي بشلي إن أي يهود نقدين هذانا وحي ليهين وحكلا نجمعن شكل يابله أو كنحتاجن حماس إيو إسرائيل لحدياشة وأريكا معناتها آد وقو مشغول سن هذا بس إذا أي واحد السعودان إسرائيل فيلين كلا لتمد دت كلا نجمعن شكلها سيروان دين هيا ورعصب وكسر كري عيدا كي حماس إلى شيء إنه كوجودون صار رفح oo yana maanta war cusub oo ka soo baxay waan idin hayaa qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaanu ku soo qaadan doonaa Hezbollah iyo Israa'iil arintooda halka ay marayso iyo Israa'iil oo markale hanjabaado culus hawada u marisay Hezbollah haddaba wararkaas aynu barnaamijkeena ugu horeeya maanta Arbacada idinkugu soo gudbinaynaa ku bilaabayna sheeko aad cajiib ah shalay waa idin sheegay shalay waxaan idin markay soo saareen Hamas وأيرادين قفكي وجود دبي واديبني يهود دبونا لو يدين كرا لفهود مجران سديدي لا تنكودي ويقبان حساب تاسو حران تاي وحي مرمرسيا وحقا كيماني حتى بوارد ما يسترني حماس مركتني لو كان أورت لكي وجود دبي صور ما يسترتين ساكي وريك سو صارين هذا عمر كان يتصو wararkii ugu dambeeyay hadaba waxa la sheegay Israa'iil inay aqoonsatay lafihii maxbuuskii shalay la soo dhiibay inay aqoonsatay hadaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in la gartay lafihii shalay la soo dhiibay in uu markaa magaalada Gaza laga keenay shalay Talaado ahayd in lafahaasu ay noqdeen nin yahuudi oo la yiraahdo Ladur Aro kaasoo la sheegay inuu ka tirsanaa deegaanka la yiraahdo Be'eri haddaba waxaa la sheegay in xukuumadda Israa'iil ay sheegtay in ninkaasi la dilay maalinkii ugu horeeyay ee weerarka Hamas ay soo qaaday 7 Oktoobar 2023 dhanka kale xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxay ku baaqeen inta u dhiman in haddana ay soo dhiibaan qolooyinkan Hamas ee jooga Gaza haddaba awjeeda nimankan marka waxay leeyihiin ninkii okay way ugu dambeeyay xisaabtaasu waa la dikaaya waa nin yahuudiya laakiin inta kale oo noo hartay soo daay maxaa haray shalay nimankii Hamas 8 kan lafihi waa wada dhiibnay yiraahdeen wax dambe oo anaka xageena ku xiran heshiiska ku saabsan ma jiraan meel aan galnay iyo isaga daba wareegeynay lafoodi waa siinay 20 nool iyo 8 lafoodi waa dhamaystirnay haddaba marka Al Jazeera saaka sheeko wareersan ay qoraysaa arrintuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Israa'iil waxay ku baaqday Gaza wali inay uga maqan yihiin lafo dad la haysto oo halka lagu hayo waxay sheegeen inay yihiin Thailandese وفرصة معلي mid Thailandese iyo waxba naga maqaleen ana shalo waxay ku riwaka filig kale keenay Thailandese oo caamil ahaa oo meesha ka shaqeynaya ee markii hore u si afduubteen iyo sheekooyin aan ku jirin markii hore heshiisku wuxuu 8 lafood inay dhiibaan iyo 20 nool heshiiskii Hamas waa dhamaystirnay dadka yahuudda markii niman imtixaan ay leeyihiin hadda waxay ku leeyihiin Thailandese raadinayna marka sheekadu waxay u taalaa dhaxdhaxaadiyaas waaye telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Hamas ayaa war soo saartay waxay ka dalbanaysaa dhaxdhaxaadiyaas inay cadaadis saaraan Israa'iil si ay u joojiso xadgudubyada ay wado xarakada muqaawamada islaamiga ee Hamas ayaa waxay sheegayaan in ay dhiibeen yahuudigii ugu dambeeyay shalay oo markaa xarakada ay ka soo baxday heshiiskii ay hore u saxeexday
oo ahaa in la isdhaafsado maxaabiista. haddaba dhanka kale waxay ugu baaqeen dhexdhexaadiyaashu inay sheegashadan Israa'iil iyo xadgudubyadan ay wado inay qabtaan. Xamaas dhexdhexaadiyaashu way la hadashay, waxay ku tiri annagu waa dhammayna hawsha, nimankan wax kalaa naga maqan iyo Thailandesha naga maqan iyo kana naga maqan iyo filimka iyo xadgudubkan ay maalin walba maanta ugu dambeysay. hadda saaka waxaan arkay rasaasay ku fureen meel ay Falastiiniyiin joogaan, rasaasay iska soo furayaan ciidankooda, taangiyada waliba qoryaha ku rakiban, taangiyada madfaca weyn ma qoriga weyn oo taangiga dul saaran ay rasaas dad ku fureen ayaa saakalshay. marka waxay yiraahdeen xadgudubyadan nimankan ka qabta. marka sheekada marka meeshan inaan la kala dhamaanayn sheeko yaab loo waay. 28 markay qaateen waxay leeyihiin Thailandesha raadinayna ka warraba adiga. marka sheekada marka waxay u taalaa dadkii damaanada sameeyay ee heshiiskan inuu hor u socdo sameeyay. xalayna waa taan ku soo qaadanay Masar iyo Turki iyo Qatar inay ku shirsanaayeen magaalada Qaahira, iyaguna kullay hawshan way la socdaan. marka sheekooyinkan aad ay isugu cakiran yihiin, wixii ka soo kordha marka waa arki doonaa. dhanka kale waxa war cusub uu ka soo baxay saakay oo wararka cusub ka mid ah ciidankii Xamaas ee la sheegay inay ku go'doonsanaayeen dhulka hoostiisa ayaa war cusub ka soo baxay. sheekada la yaab kale marka warbaahintu ay ka hadlayso, Israa'iil waa tay diiday oo dhibaato ka dhacday meesha. nimankii waaba la laayahay, nimankii meelay ku jiraan Israa'iil meel kasta inta ka raadisay laada. war ciidanka meeshan ku go'doonsan xaguu ku jiraa, xagee aadeen, intee galeen, godka ay ku jiraan aan ku dumine meelay ku jiraan kaala sheeg. habeenkiina dhulka u ruxmay dhulka saas u gariiraya, nimanka dhulka hoos ku jiraan. markay baaritaan sameeyaan wax kasta sameeyaan meelay nimanku kaga jiraan dhulkana ma yaqaanaan. war wuxuu jin miyaa bini aadan ma biya meesha ka dhacday. haddaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ciidanka Israa'iil ayaa war soo saaray, waxay yiraahdeen waxaynu wadnaa baaritaan ku saabsan inaan raadinayno kooxaha hubaysan ee jooga Rafah. haddaba ciidamada Israa'iil ayaa waxay sheegeen inay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen dagaalyahano hubaysan oo iyagu la sheegay inay joogaan dhanka Rafah, oo markaa la sheegay in ay garteen oo ay raadinayaan oo dhulka hoostiisa ay ka raadinayaan. dagaalyahanada meel kasta laga raadinaya. hadda 6 meelna loogu sheegay 6 aan raadinaynaa, meeshii maba arkayna godadkii dhulka hoostiisa ah maba u jeednaba annaga. marka baaritaankaas aan ku wadnaa, shaqadaas aan wadnaa, nimankii meelay ku jiraan iyo meel kale la raadinaya lagu leeyahay. marka sheekadaas iyaduna wararka cusub ayay ka mid tahay. arrinta Xisbullah iyo Israa'iil oo Xisbullah iyada ayaa waxbay aarsanaysaa, argoosi sameynaysaa lagu jiray. maanta wasiirkii gaashaandhigga Israa'iil hadlay, wuxuu yiri nimankan kiisaaba ku haysanaa. maxaa weeye kiiskaad ku haysataan? waxaan ku haysanaa waxay horay u sheegeen bisha sanadka 2025 gudihiisa in hubka lagu dhigayo. dawladda Lubnaan Mareykanka u sheegtay, Mareykanka waxay ku tiri ilaa hana la siiyo sanadka 2025 Xisbullah hubka ka dhigayna. sanadkii bilaa ka dhiman oo November hadda u jira, December kaliya dhiman. nimankaanu ilaa December hadday hubka soo dhiibi waayaan jawaabtooda annaga sugayn buu rakula. annaga dukum daakum ka dhigayna meesha joogaan Xisbullah waa duqeynayna. nimankii Xisbullah waa ba aarsanayna ku jiray. hadda Israa'iil waxay taagan tahay annaga hal bil ka dhimanba arintan kula ballanay dawladda Lubnaan hubka inay ka dhigto. hadee ma ka dhigi weynino marka annaga ayaga waaba noo dagaalayna. waxay rabaa ha keeneen sheekadii marka waaba la soo afjaray. argoosigii iyo filimkiisii annagaaba idin soo soconaaba la taagayay. haddaba aan tuso telefishinka Al Arabiya saaka qoray wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ninka la yiraahdo Israa'iil Katz ayaa wuxuu sheegay inay qaadi doonaan dagaalo culus oo ay ku qaadi doonaan Lubnaan haddii aysan Xisbullah soo dhiibin hubkeeda oo hubka aysan soo wareejinin. heshiiska xabad joojinta xuduudda dhanka badana
waxaa la sheegay ama heshiiskii xuduudeedkii badda ee hore u dhex maray lubnaan in israa'iil ay dib u eegis ku samayn doonto. haddaba sheekadan marka way sii socotay. waxaa leeyahay heshiiskaasi badda ee kala dhexeeyay lubnaan israa'iil waxay doonaysaa inay ka baxdo ayay doonaysaa. dhanka kalena waxay yidhaahdeen maraykanka wuxuu doonayaa in hubka laga dhigo ilaa sanadkan. marka haddii dhigi waayaan annagaa weeraraynu taagay. ninkii kaadsa ah qorqoladan inayna soo weerarto iska dhaafa annagaaba u soconuu leey. nimankii argoosiga laga sugayay oo goorbay argoosanayaan war xisbullaahidii ayaga miya aawey ma jirtaba annagaaba idii soo soconaaleen maxaa argoosanaysaan. marka nimankii argoosigoodii iyaguna halkaasuu horta marayaa. inkastoo weli cabsi ay jirto shimaal israa'iil meesha la yidhaha macnaha waqooyiga israa'iil dhulkii falastiin laga boobay ee xuduudka lubnaan oo yuhuudda deganeed yuhuudda weli waa qaxayaan. waxay leeyihiin meeshaan waxbaa ka soo socda xisbullah waxay rabtay samayn kartaa. marka annaga ma ka caymano sidii xamaas camal in dhulkana looga soo baxo nala aruursado nala afduubo marka hawshaa ma geli karna taagayiin. marka sheekadaasu marka halkaasee ayaduna joogtaa. bal wixii soo kordha waa iswaraysan doonaa barnaamijyada dambe. laakiin waxaad fakar ka dhiibataan sheekada ku saabsan xamaas waxay leedahay wixiina lakula heshiiyey waa dhiibnay lafo iyo wax noolba. israa'iilna waxay leedahay sheekadu weli waa dhiman tahay oo waxaan raadinaynaa niman taylandees oo shaqaalo noo ahaa oo meeshaa u kaxaysateen. marka sheekadaasu markii horena heshiiska kuma jirin. marka arrinkaasu maxaa idinkaga baxay soo qora. haddaba barnaamijkaygii ugu horreeyey waa nagaytaa. waxay soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. laagareeya oo sheergareeya fakarkiinana ka dhiibta. inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo.